Suubanaheeni Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee caadooyinka uu lahaa waxaa ka mid ah sida in aroor kasta qaato 7 midh timir iyo koob caano ah. Mana ahayn mid caadadaasi joojiya ilaa ay saxaabada Ilaahay ka raali noqday weydiiyeen sababta ka dambaysa caadadan. Marka ayuu ugu jawaabay sida tan: in la isku qaato timirta iyo caanaha waxay faa'iido u tahay maskaxda, jirkana waxay ka saartaa sunta. Sidaa daraaddeed, saxaabada waxay bilaabeen iyaguna inay caadadaasi dhaqangeliyaan. Muddo kadib waxay saynisyahanadu isweydiiyeen sababta Nebi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sidaa u yidhi. Kadib waxay soo qaadeen 7 midh timir iyo koob caano ah. Waxay ku tijaabiyeen calool macmal ah loo sameeyey qaabka tan bini'aadanka, iyadoo oo ay u dhan tahay dhammaan wixii dheecaano ay soo dayn lahayd caloosha kale real stomach. Kadib waxay bilowday shaqadii. Si lama filaan ah ayaa waxay ku arkeen in kalabarka caloosha uu ka soo burqado iftiin kalarkiisu ay ku sheegeen buluug oo ku sii socdo dhanka maskaxda. Taana waxay ahayd mid ay arki karaan. Baaritaano kadib waxaa la ogaaday in iftiinkaasu uu kordhiyo caqliga. Waxay kaloo arkeen waxyaabo kale oo isku qasan kuna sii socda inta u dhaxaysa maqaarka iyo murqaha oo ahaa sunta. Sida caadiga ah, jirka bini'aadanka sunta meelaha loogu filter gareeyo laga saaro waxaa ka mid ah beerka. Kadib wuxuu ku soo jiheeyaa inta u dhaxaysa daldaloolada maqaarka iyo murqaha oo halkaasi sunta loogu takhaluso. Tani waxay ka mid tahay mucjisooyinka caafimaad uu lahaa Suubanaheena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.